Ma kuu sheega hal shay oo ka muhiimsan jacaylka? Ku soo dhowow muuqaalkan aan kaga hadlayo waxaadan ka ogeyn jacaylka. Fadlan, muuqaalka la gare si dad badan u gaaro na caawiyo. Jacaylku waa dareen qof kasta uu ka aaminsan yahay fikrad u gooni ah. Fikradaasi waxaa sababtay. Fikradaasna waxaa sabab u ah qofka uu jeclaa, ha khiyaano, ha ka tago ama hala joogo hadda. Jacaylku waa dareen qurux badan, qof kasta jecel inuu la noolaado, helo qofka uu jecel yahay. Laakiin jacaylku wuu guuldareystaa, sababtaasna waxa ay tahay inuu jiro wax ka muhiimsan jacaylka. Haa, waxaa jira wax ka muhiimsan jacaylka. Aan soo qabto sheeko si aan kuu fahamsiiyo. Axmed iyo Fartuun waxay ahaayeen arday isla dhigta hal fasal. Dadka ayay iska barteen iskana dhoweysteen. Jacayl qurux badan ayaa dhexdooda ka beermay. Qof kasta dhankiisa waxa uu ka adkeeyey si kasta oo khilaaf u dhaco in la kala tegin. Dugsigii sare ayay wada dhammeeyeen. Waxay u diyaar garoobeen jaamacad dalka ay ka wada dhigtaan. Taasna way isku raaceen. Jaamacaddii ayay wada bilaabeen, iyagoo ku faraxsan inay heerka koowaad ee jaamacaddan isla bilaabeen. Axmed waa qof aanan shaqaynin, jaamacaddana waxaa ka bixiya waalidkii. Wax xirfad iyo fikrad ganacsi toona ma lahan. Waxa uu aadaa jaamacadda, galabihiina waxa uu iska xaadiriyaa halka ay ku caweeyaan saaxiibadii. Fartuunna waa la mid, waa iska guri joogto jaamacad dhigata, familkeedana guriga ka caawisa. Familka Fartuun ayaa la jeclaaday nin qaraabada oo xoogaa haysta, markaasna ka yimid Maraykanka. Waxayna la wadaageen Fartuun. Way ka diiday Fartuun waxayna u sheegtay inay rabto inay dhammayso jaamacadda, ayna isla socdaan Axmed. Walaasha Fartuun ayaa ku tiri, muxuu hayaa Axmed marka aad diidayso ninkani lacagta leh ee jaamacadda kaa bixinayo, kuna guursanayo meesha rabtidna ku geynayo, madabaal ayaa tahay. Xoogaa cadaadis iyo fikir kadib, Fartuun way aqbashay. Waxayna la kulantay ninkii familkeeda ay la jeclaadeen. Waxa uu u ballanqaaday in jaamacaddeeda ay sii wadan doonto, una geynayo Turkiga, halkaasna uga furayo dacwad si uu u geeyo Maraykanka. Fartuun way ka aqbashay, wayna soo dhoweysay. Axmedkii maskiinka waxay u sheegtay in waalidkeeda ay ku qasbeen in aysan rabin. Halka ayuu ka bilaabay Axmed oohin iyo calaacal, laakiin nin fara maran yaa rabaa. Iga qaado xaqiiqadani qaraar. Haddii nin aad tahay jacaylku ma ahan waxa ugu muhiimsan nolosha, jacaylkuna ma gooyo wax kasta. Laakiin lacagtu waa waxa ugu muhiimsan nolosha, qof kastana kugu jeclaanayo. Imise gabdhood ayaa taqaanaa xiriir jacayl la waday qof ay isjeclaayeen, laakiin markii arkeen ninka jebron kan ay la socdaan, biraha uga kacay. Sababtoo waxa ay kula joogto ma jirto. Ninkaasi lacagta le ayay wax waliba agtiisa ka helaysaa, xitaa jacayl. Sababtoo ah jacaylku wuu samaysmaa. Tusaale aan ku siiyo. Ka waran haddii dhowr mar isku xigta aan ku iibiyo hadiyad qaali ah, aan ku dalxiisgeeyo waddanka aad jeceshahay. Farxad ayaad dareemaysaa. Jacaylka laguu sheegayana waxa uu hareer socdaa farxaddaasi. Haddii arday aad tahay iskuul dhiganayo ama jaamacad dhiganayo, ha ka fikirin jacayl ee waxaad ka fikirtaa sida lacag aad ku samayn lahayd, sida dakhli fiican uu kuu soo geli lahaa. Markaasi waxaad guursan kartaa gabar kasta oo aad jeclaato, iyadana kuma diidi karto, waayo waxa ay kaa aragtaa inaad tahay nin rag oo wax kasta u qalma. Ahaw nin foolxun ama nin quruxsan. Xaqiiqada dunida taalla maanta waxa ay tahay in qofka lacagta leh uu helayo wax kasta uu doono, xitaa jacayl. Dunida maanta ma jiro wax la dhaho cudurdaar. Maanta way sahlan tahay in qofka lacag sameeyo. Waxaa maqli jiray faqiir jacayl galay wax ka xun ma jirto. Marka adiga ha lagaa guursado markasta gabadha aad jeceshahay, kadibna la soo istaago way khiyaantay. Kuma qiyaamin waxa ay ka talisay mustaqbalkeeda gabadha. Gabar kasta waxa ay rabtaa nin diyaarsan, dhaqaale ahaan iyo maskax ahaan, waayo waxa ay rabtaa qof ay isku aaminto, qof mas'uuliyaddeeda qaadi kara, qof waxa ay rabto ay ka helayso. Laakiin haddii aad jeeb maran tahay, maxaad u qaban kartaa? Ha ku luminin jacayl waqtigaaga, laakiin taasi beddelkeeda waxaad samayn kartaa inaad lacag ku samaysid si caqliyeysan.